labadan bas oo kamid ah basas dowladda Qatar Soomaaliya ugu deeqday laba kamid ahna caasimadda Garowe la siiyay ayaa la keenay magaalada Garowe caasimadda Puntland waana basas noocooda kala aysan joogin Puntland sida ay sheegeen mas'uuliyiintu gudoomiyaha degmada Garowe Axmed Saciid Muuse oo qayb weyn ka qaatay keenida basaskan ayaa sheegay in lagu adeegi doono shacabka reer Puntland khaasatan garoomada diyaaradaha maadaama magaalada aysan ku habboonayn inay ka shaqeeyaan basaskii la keenay xamar laga keenay aad baan waxaan uga mahad celinayaa maamulka gobolka Banaadir oo hawshaas isagu nagu wareejiyay labada bas gudoomiyaha Yariso labadii bas way yimaadeen muddana waa joogeen haddana waxaan rabnaa in meelaha ay ku habboon yihiin ay ka shaqeeyaan sida awgeed waxaan rabnaa basaskaas inay ka shaqeeyaan aeroboorada waaweyn oo casriga ah ee internationalka magaalada Garowe ku yaala iyo kuwa kale ee Puntland gudaheeda gudoomiyaha ayaa sheegay in wadooyinka qaarkood aysan mari karin basaskan isagoo sababta ku sheegay in basaskan ay yihiin kuwa waaweyn waa basas aad u waaweyn magaalada dhexdeedana maristooda uma sahlana iyo inay ka shaqeeyaan runtii basas qarsoon maaha way joogaan magaaladana way dhex marayeen dadkuna way arkeen basaskan basas waaweyn oo qiimo gal ah oo maaragtay wax badan ku soo kordhin kara weeye waxaan ka rajaynaynaa ilaahay uu maaragtay meelaha hadda laga shaqeynayana uu sakhiro inay si fiican ugu shaqeeyaan maxamed cabdirasaaq Timajilic waa madaxa gaadiidka dowladda hoose ee degmada Garowe waxa uu tilmaamay in halkii basba markii uu qaadi karo ku dhawaad 80 qof gawaaridan waxay ka mid tahay gawaarida dowladda hoose ku soo biiray labadan basas waxay qaadaan baaxadoodu ilaa 70 qof ilaa 80 qof bay baaxadoodu qaadaa markii la isku celirsado waana gawaarida waaweyn ma leh wax ceeba intaan wada booso waxaan ahaa dadkii mas'uuliyiinta ka soo kaxayay oo Garowe keenay wax ceeba oo baabuurtani ay leeyihiin ma jiro mukeefiyadooda saacadahooda dabkooda muraayadahooda waxa saad u jeedaan in gaarigani wax ceeba oo ka muuqda ma leh waana hantii u soo bulshooyinka reer Garowe iyo dhammaan Puntland ba u ah guul gaar ahaan degmada Garowe aad bay u fiican yihiin gawaaridani waxaana waana gawaari gaadiidka dowladda hoose hadda kamida tirada dowladda hoosena kamid yihiin waxaan dareemayaa inuu halkan ugu eegay sidii diyaaradihii oo kale alaabtii soo saarsi jiray marka diyaaraddu dadku markii soo galaan dadku waa yaabayaan waxa weeye weligood kuma aysan arkin Puntland gaarigan oo kale qof walba oo aragtida wuxuu ku leeyahay walaal u saar gaariga markaan boosaas gudaheeda soo soconay iyo markaan Garowe keenay shacabkan iska celin war ka joogo qof walba wuxuu haystaa diyaarad duulaysa meeshaan aniga markii aan soo galay waxaan isiiday aqliyan waa diyaarad miyaa ma alaabta gudoomiyaha degmada Garowe Axmed Saciid Muuse ayaa xusay in baabuurtan loo dhiibay darawaliin khibrad dheeri ah u leh kaxayntooda meelo badan maritaankooda uusan sahlanayn laakiin wadooyinka badankooda Garowe ku yaala uma sahlana inay si caadi ah u maraan ama ku kala jireeyaan ama maaragtay ku dhex socdaan laakiin way mari karaan laakiin ma aha meelihii ku habboonaa inay maraan darawallo wanaagsan oo si fiican boosaasi ka soo kaxeeyay oo aad u wanaagsan baa wada aadna u garanaya shaqada basaskan la keenay Garowe ayaa waxay ka mid yihiin ku dhawaad 30 bas oo dowladda Qatar ugu deeqday dowladda federaalka Soomaaliya dhamaadkii sanadkii 2018